السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أصحابتي ذي كسود وهذا Somali business. ساس ويان كسود وهذا somalibusiness.info. maanta waxaa ka hadlaynaa labo arin ayaa ka hadlaynaa insha allahu tacaala. marka muuqaalkan oo dhammaystiran daawada. akhyaarta kusoo dhawaada maasha allah. haddaa ku cusubtahay channelkan somalibusiness.info kusoo dhawaada gacan furan insha allah. qanata waxaa ku dhufataa subscribe ku dhufta, like saara muuqaalkan, kusoo dhawaada insha allah. waan faa'iideynayaa waqti kasta. aniga waxaa isku dayaa I do my best inaa isku dayo micnaa in nii faa'iideeyo waqti kasto si ininka noloshiina u badishaan oo horumar u gaartaan oo insha allahu tacaala internetka ka faa'iideysataan. marka qofaa fariin ii soo diray. horta laba arrin aan rabaa ilaa ka hadlo maanta. mogtahay arrinta koowaad waxa waaye qofaa fariin ii soo diray. qofkan wuxuu leeyahay af ingiriis ku qoray, wuxuu leeyahay to make money on the internet you have to lie and that's dirty money and you will never success. It's better to get a decent job and that's clean money. Understand? marka dadka ingiriiska garanayo waa fahamteen oo maleynayaa, laakiin waa nii turjumaanaya qofkan wuxuu dhahay. waxaa waa dhib male qofkan inaa ceebeeyo marabi magaciisa kuma qoraayo. waxaa waa commentiisa waa la titiray marka ma arkaysiin. magaciisa waa daboolayaa maxaa yeelay ceybtiisa waa in la asturnaa. qofka waxaa bin aadanka yaa dadka kale ceybtooda hadduu asturo ilaahay ceybtiisa asturaayo. marka waa asturayna ceybtiisa, dhib ma laha. marka wuxuu dhahay to make money on the internet you have to lie. macnaa haddaa rabtid internetka lacag ilaa ka samaysid waa in aad been sheegtaa. saasuu leeyahay, been inaad sheegtid weeyaan haddaa rabtid internetka lacag ilaa ka samaysid. and you have to lie and that's dirty money. waxaa waa internetka haddaa rabtid lacag ilaa ka samaysid waa in aad sheegtaa been. lacagtaasna waxa waaye lacag oo xaaraan iskale. saas ula jeedaa lacag xaaraan ama dirty money oo lacag wasakh waa ula jeedaa. yaa wuxuu leeyahay lacagtaas waa lacag wasakh ah. and you will never success. macnaha waxaa ula jeedaa william ma guuleysanaysid. is better to get a decent job. yaa shaqa caada ilaa raasatid oo heshid a kaaga roon. and that's clean money. Understand? shaqa caadi haddaa heshid kaasaa kaaga roon. maxaa yeelay kaas waa lacag oo nadiif ah ama lacag xalaal ula jeedaa. waxa waaye macnaa midda hore dadka badan ama fahamsan in internetka laga shaqeysi karo oo lacag laga qabi karo. waxaa soo baxay ixsaa'iyaadta soo baxay. macnaa maraykanka halkan waxaa laga sameeyey research baaritaana laga sameeyey 25% yaa boqolkiiba 25 ama 40 qofoodba hal qofood internetka lacag ku ka sameeyaa maraykanka. waa fahamteen oo maleena maho. okay, midda kale anaka dad oo jooga Bangladesh way noo shaqeeyaan. dad Hindi joogo ayaa noo shaqeeya lacagkaasiina. dad Philippines joogo way noo shaqeeyaan lacagkaasiina. dad hadda Kenya joogaan Soomaali oo Kenya degan way noo shaqeeyaan lacagkaasiina. marka dadkaas maalin kasto laptopkoodii ayay galaan. howlaa u dhiibnaa, shaqaa u dhiibnaa. waxaa leenahay kan samey leenahay adig macnaa howsha way kala duwan yihiin, laakiin waxa waaye way noo shaqeeyaan maasha allah alxamdulilah. lacagtooda iska siinaa. marka kuwaas internetka sooma ka shaqeystaan. yaa ilaahay anay qabtaa wax xaaraan ma sameyna. anaka dadka been uma sheegno, dadka ma khiyaano, wax xaaraan ma sameyno. yaa lacagta xaaraanta waa laga fiican yahay. marka ilaahay wax xaaraan iyo lacag xaaraan ilaah anay qabto. aamiin dhaha, aamiin. marka waxa waaye macnaa howlo leenoo qabtaan adiga anaka wax xaaraan ma sameyno. dadkaasoo lacagtooda waa siinaa. marka dadkaasoo internetka ka shaqeysanayo oo yaa dunida kala joogaan lacagtaas xaaraan miya ii sheega. marka may xaaraan ma aha. kan waxaa la dhahaa freelancing aa la dhahaa. freelancing ama virtual assistant. kan waxaa waaye shaqo xaaraan ma aha. okay,
micnaha kadhig waxaa qof wuxuu rabaa adiga in laga caawiyo. waxaa dadka Mareykanka iyo Yurubta joogaan aad iyo aad ay mashquul u yihiin, noloshoodii iyo waxoodii mashquul busy ku yihiin. markii waxay rabaan dad in ay caawiyaan oo howlo loo qabto, sida video editing camal loo sameeyo ay rabaan, sida waxay rabaan micnaha oo wax loo qoro, articles loo qoro ay rabaan, sida website-ahoodii loo hagaajiyo camal ay rabaan. yaa adi howsha way badan yihiin. maxaa waaye qofka hadduu micnaha oo mashquul yahay oo business iyo waxaas kala wado, yaa oo mashquul yahay waqti uma hayo waxaan oo dhan inuu sameeyo, moogtahay. marka muxuu sameynaa, waan tusayaa computerka galena, wuxuu galayaa website la dhaho Fiverr ayuu galayaa. okay, website-aha way badan yihiin internetka la shaqeeya. Upwork aa jiro, Fiverr aa jiro, people per hour aa jiro, way badan yihiin. marka Fiverr aa ugu weyn iyo Upwork. waxaa rabaa macnaha hal jeer computerka galena, inkastoo maanta aan bixinayna cashar ma jiraan, laakiin computerka galena waxaan tusayaa macnaha dadka internetka ka shaqeystaan aan tusayaa. okay, macnaha howlaha way badan yihiin. hadda ka hor aan sheegay, midda koowaad waa inaad lahaataa xirfad. horta xirfad in aad lahaadid weeyaan habka oo loo sameeyo website inaad garatid, kaas waa xirfad. haddaa garanaysa video editing sida loo sameeyo, kaas waa xirfad. haddaa garanaysa sida wax loo qoro articles, kaas waa xirfad. haddaa garanaysa sida loo sameeyo logo design, kaas waa xirfad. haddaa garanaysid habka loo sameeyo Amazon, sida loo sameeyo howsha Amazon, kaas waa xirfad. howsha Shopify, kaas waa xirfad. waxa waa howsha way badan yihiin. okay, kuwaan oo dhan waa xirfado kala duwan. marka haddaa mid garanaysid, hal xirfad, laba xirfad, waxa adig garanaysid, yaa website-kan aa gali kartaa. website-ka Fiverr ayaa la dhahaa. linkiga hoos oo ku jira. haddaa rabta account ilaa ka samaysatid, yaa hoosaa ku dhufi karta, meesha ku qoran yahay Fiverr ka shaqeyso, meesha ku dhufan haddaa rabta ilaa ka shaqeysatid. marka waxa waaye waan tusayaa kuwaan oo dhan soo mujeedi: logo design, brand style guides, business cards, illustration, waxaan oo dhan, game design, graphic design, waxaan oo dhan soo mujeedid. waxaan oo dhan waa shaqo kala duwan. waxaan inta ku qoran SEO iyo social media advertising iyo public relations, podcast marketing, waxaan oo dhan soo mujeed inta ku taxan oo dhan, kuwaan dhan waa shaqo. markii shaqadan xaraam maxaa ka dhigaa la yaabanahay. yaa yarkaan oo dhahayo micnaa shaqooyinka internetka waa xaraan ama micnaa waa lacag oo wasaq ah, dirty money oo dhahayo, shaqooyinkan xaraan maxaa ka dhigay. waxaa dadka shaqeysanayo waxaa hadda waxaa la gaaray heeraa la gaaray, internetka jiro, technology ayaa jiro. waxaa dadka xafiiska ma aadaan, xafiiska kama shaqeystaan. yaa laptopka laga shaqeystaa, computerka laga shaqeystaa. qofka guriisa joogo laptopku galaya, internetku galaya oo ka shaqeysanaa meesha, asagoo wax xaraan sameynin. maxaa yeelay aniga ma nihin subxaan allah, ilaahay anaga qabtay dadka oo dadka kala dhahayo orod yaa wax xaraan sameey ama lacag xaraan qabo ama yaa lacag xaraan ka shaqeyso, dadka dhahayo ma nihin. xaraan ilaah naga fogeeyo, aamiin dhaha. marka insha allah waxaa ku salisaa nabigeena ku saliya, nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku saliya. midda kale, muuqaalkan like ku dhufo iyo comment hoos igu qor. comment wax kasta ku qori kartaa, marka comment hoos igu qor. marka waa kaas waa fahamteen oo maleena dadkan oo dhan internetka ku jiraan way shaqeystaan. kuwaan oo dhan waxaan oo dhan waa shaqo. soo ma jeedid dadkan oo dhan way shaqeystaan. xaraana ma aha. xaraam maxaa ka dhigay. yaa micnaa photo dadkan sawirahay ku hagaajinaya haddaa rabtid. micnaa kan wuxuu dhahay micnaa waxaa ku baraya habka cuntada loo kariyaa ku baraya ayuu ku qoray halkan. soo ma jeedid. tan waxay leedahay micnaa black haddaa leedahay, black ayaa ku qoraya ay leedahay. marka waxaan u xaraam maxaa ka dhigay. waa dad oo muslimiin ah ka buuxdane, maasha allah. muslimiin oo Pakistan joogaan ama Bangladesh joogaan, maasha allah. habeen oo indha shareer xiran oo inta ka shaqeysanaya ku jiraan. ikaad haddaan i tusaya, haddaan i tusi karaa fiirinaya. ya hadda kahor waynu shaqeeya aniga wax Pakistan jooga iyo waxaas hool inoo qabteen, maasha allah. waan fiirinaya haddaa soo saari karaya. waxaa muuqaalkan inaan igu dheereeyo marabi. yaa maasha allah, ilaan soo gaabiyaa rabaa. hada waxay noqonaysaa ilaa raadi ay noqonaysaa, laakiin way jiraan. marka dadkan una way shaqeystaan. mid kalaan liitusayaa, website kalaan liitusayaa.
website-kan waxaa la dhahaa Upwork la dhahaa, Soomaali badanaa ka shaqeeya. waxay qabtaan hawsha turjumaan iyo waxaasay qabtaan iyo dadka cod u duubaan. aninka xawaadida inta ka shaqa ka siinay oo noo shaqeeya hadda maasha allah. marka ya haddaa ku qoro inta Soomaali haddaa ku qoro soo ma jeedid yarkan waa Soomaali wuxuu joogaa kan Mareykan uu jooga iska dhaaf dadka Mareykan joogaan waa daboolenaya dadka Mareykan joogaan waa daboolena dadka Afrika joogaan soo saarena kana Maxamed al dhahaa intuu ku shaqeeyay soo ma jeedid $3,000 la siiyay dalka Soomaaliya joogaa. wuxuu leeyahay I'm Somali native translator and proof reader. mina xawaaya waa ku turjumaya oo leeyahay waxa ku qoray hadda u maanta wax loo qoro. Soomaaliya joogaa kan Cabdifataax Kenya ayuu joogaa. Kamaaluddin wuxuu joogaa. Kamaaluddin uu ka shaqeeyay internetka wuxuu ka qabtay soo ma jeedid maasha allah. Kamaaluddin $30,000 ayaa la siiyay. Soomaaliya joogaa. waa kana qofka micnaha dooro inuu shaqeysto uu shaqeysanayaa. qofka dooro inuu shaqeysto uu shaqeysanayaa. cudur daar ma imaanayo, excuse ma imaanayo, kan ma awoodi iyo kan ma aqaani waxaas manayo uu dadaala. qofka uu dadaalo meel uu gaaraya. micnaha maskaxdiisa qofka dooro inuu ka shaqeysto, maskaxdiisa dooro wax inuu gashto inuu sameeyo ya asuu micnaha wax oo la sameey karo inuu sameeynaa. wax oo impossible ahayn ayuu possible ka dhigaya. marka Kamaaluddin waa sheegnay. Caasha Kenya joogtaa. Ibrahim Cabdi Xakiin Kenya jooga. soo ma jeedid kuwaan internetka ka shaqeystaan ya maasha allah internetka ka shaqeystaan. wax xaraam ma sameeyaan waa maya wax xaraam ma sameeyaan. waxa waa kan law tusaale leebayaan iyo tusaalaha kale way badan yihiin. Shopify dukaana furi kartaa, alaaba baaci kartaa, affiliate marketing ayaa sameey kartaa ya hadda kor waan sheegnay blogging ayaa qori kartaa. blogging haddaa qorteed xayeysiin haddaa gelisay lacagka ku soo dhacayo ya isku markii ku soo dhacayo cabaar ilu qaata laga yaabaa in yar ilaa micnaha oo adiga bilowin kadib inuu ku soo dhaca laga yaabaa. laakiin u dambeyskeeda dadaashid oo lacag waa sameey kartaa. okay insha allah hadalkii aniga badinin. mid kale insha allah waxaan rabaa waxaan bilaabeynaa cashir af Ingiriis ah. bilaabeynaa duruus oo af Ingiriis ah ayaa bilaabeynaa. waxaan gelinaynaa Facebook groupkeena gelinaynaa. marka haddaad ka mid ahayn dadka Facebook ku xiran marka insha allah ku xirnaa Facebook ku xirnaa waa kaasa hoosa ku jira micnaha linkiga Facebook group hoosa gelinaynaa insha allah. marka waa kaasa insha allah. kaas waa shayga labaad oon rabo inaan sheego. waxaa bilaabeynaa cashiro oo af Ingiriis ah. micnaha dadka af Ingiriiska garanayaan ya waa soo gali kartiin laakiin dadka garanayaan ayaa rabaa inaan insha allah Ingiriiska ni bilaabo. maxaa yeelay Ingiriiska hadduu ku bilaaban yahay in yar haddaa garanaysid website-dahan ayaa gali kartaa, waad ka shaqeysan kartaa, waad ka faa'iideysan kartaa. waad garateen aan umaleynaya soo maahan. marka insha allah waa kaasa. marka waxa waaye internetka wax xaaraan way ku jiraan, wax xalaalna way ku jiraan. xaaraanta ilaahay anaga qabto, waxa xalaasha kaliya sameynayna. howlaha qabi kartid iyo micnaha howsha qabi kartid, howl xalaala qabi kartaa. xaaraanta maxaa ku geysaday? xaaraanta iska daa. marka dadka dhahayo waxa waaye internetka lacagtiisa xaaraan weeyaan, lacag wasakh weeyaan, waxa waaye dadka waxa waaye kaas waxaa ka yar aqoonta informationka ku yar. micnaha waxaa laga yaabaa in wax been loo sheegaa laga yaabaa. qof kale been inuu sheegaa laga yaabaa. si kada qof inuu micnaha inuu wax ka dhaadhacsiyaa laga yaabaa oo internetka xaaraan ka buuxo. marka sheekadaas inuu aamina laga yaabaa. laakiin qofka xawaado aqoon leeyahay oo baaritaan sameeyo research sameeyo waa ogaanaya micnaha lacagta internetka inuu xaaraan kaliya ahayn oo ku jiro lacag xalaal inuu ku jiro ogaanaya. marka waa kaasa insha allahu tacaala. muuqaalkeeni kan waynu dhamaateen. waxaan jeclaa waqti kasto inaan ii xasuusiyo sheegahay maxaan ii xasuusiyaa waqti kasto muuqaal kasto oo aan dhameeyo maxaan ii xasuusiyaa qosolka badsada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.